basharka waxaa u fadli badan dad lala fadhiista saalixiin laakiin ka warran haddii naadiga kan dadka fadhiista ay ka mid yihiin malaa'igta ilaahay muqarrabiinta malaa'iku raxmaan ee ilaahay caabuda majaalista ay haddaad rabto shir malaa'igaad inaad ka qayb gasho maaha shir bini aadama qura maaha malaa'igta haddaad rabto inaad shirkeeda ka qayb gasho waxaad u baahantahay inaad fadhiisato majaalis dikr meelaha ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xusayo walidaalik buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya waxafathum almalaa'ika kuwa waxaa isku xeero oo ku soo la nagaadoo la jooga malaa'igta buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qodob afraad buu nebigu haddana xadiidkaasi ku sheego wuxuu tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa agtiisa jooga inuu sheego nafta bini aadamkaahi min طabcihaa waxaa ka mida sheegsheegga way jeceshay qofka bini aadamkaahi ammaanta wuu jeceliye madxiga ama in la sheegsheego wuu jeceliye in lagu yidhaahdo ninkaa hebel meel adigoo ka maqan haddii la yidhaha wallahi ninkaa hebel waa nin fiican waad farxaysaa oo wallahi halkaa wax fiican baa laga yacni naftu waxay kuu sheegaysaa inaad nin fiican tahay maadaama fiicni lagugu hadal hayay haddii meel laga yidhaahdo aad ka maqantay wallahi ninkaa hebel waa nin deeqsiya ama waa nin gacan furan ama waxoogaaga xasanaadkii aad shaqaysato haddii la sheegsheego bini aadamku wuu farxaa maxaad u malaynaysaa cidda ku sheegsheegaysa hadduu rabbi samaawaati walardi noqdo qofka ilaahay sheegaya ka warran ee majliska laga sheegayana uu yahay meel malaa'igi joogto rabbu samaawaati walardi adigoo makhluuq daciifa waan waxba ahayn ka warran in ilaahay ku sheego bini aadamku maanta magac buu dunida isku dilaa iyo meel hore inuu galo xidigahan la sheegaya iyo waxaan bini aadamku isku eriyanaya iyo lacagtan iyo waxaan lacagtu qiimo ma leh waayo qofka bini aadamkii wuxuu cuno unbuu ka cunayaa inta kale uu ka tegayaa laakiin inta kale muxuu u ururinayaa in la sheego inuu noqdo milyaneer hebel ama ninkii inta kale waa magac iyo faanfaankay ka wakiiltay laakiin inta la cunaa waa in yar walidaalika insaanku sidiisaba wuxuu jecel yahay inuu wax la sheega noqdo maadaama sheegista aad jeceshahay ilaahay baa wuxuu ku leeyahay anaa ku sheegaya waxaanan kaa sheegayaa maxay majlis malaa'igi joogto